odagii baa furay islaantii baa la furay waa wada maqasheen baan u malaynin badan oo ka mid guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yahay faqrigu idinku waxa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen binaadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay bulshada ay la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda uu ka hooseeya faqriga saas baa lagu qiimeeyaa de standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad مثلا halka ay joogtaan waa Uganda Soomaha standard baa jira standard ka qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standard ka life ka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa faqara waa daas kuwa lacagta soo diriyo war waa $100 oo ka ururiya carruurta cashadoodii oo xogaa ka shaxaaday ama kan ka shaxaaday lacag ma jirto waa qof weyn oo waxoogaagii la yidhi carruurta ama meelaha ku gee ama halkan ku gee intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aabba gurigiinna ayayaan u dirayaa iyo adeer baabaahan iyo kan baabaahan ku soo diray ma haddaad hanti haysta weliba waxaa intaa u sii dheer xirfad ma leh xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh soomaalidu in general markaan uga hadalno wax xirfadoo qofka Soomaaligu leeyahay laba shay baa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari ka xayeeyo walabada xirfadood Soomaalidu xirfad kale ma ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxba idinka socday oo Soomaalidaaba baacimishtarka u badan baan arkay safarka xagga kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno adag oo aan ku ogolaan inaad si fudud u soo gashay oo cashuur iyo kanna waa dul saaran yihiin saadaradeed tijaarada Soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa weeye waa maqaaxi yar oo Soomaali wax ka gada intan qaxoontiga iyo qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yar oo dirac iyo gogora diibinaya iyo intii yareed Soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baac mushtar u jeeda wadanka inuu wax ka iibsado saawgeed xirfadii baac mushtar ee Soomaalidu lahayd Yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin de quantity iibinaya sadaradeed adigu haddaad soo gasho iskaba ka bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso ma xirfadda labaad ee Soomaaligu leeyahay waa darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu banaato yani markay wadanka shaqa la'aan ka dhacdo dee dadkan qaxootiga waxa ma shaqooyinka ugu horeeyay waayo hoos buu soo dhacda shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yara furantay iyagu kuwa sare u yara kacayaan markaas waxa ku banaanaanaya dhulxaadkii iyo darawalkii iyo intaasaa banaanaanaysa xataa dhulxaadka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo tad ma fiqs ka qaadata xaadimaysid ay ku oranayaan dhabarka ku xanuuni doona dhowbaadna weydiinaysaa pension iyo waxa weyn certificate ka seeta system wax loo xaaraa jira hatta hadda tiraadaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxayo soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka Soomaaliga xirfad ma leh dadka Soomaaliyada siyaacaya qof xirfad leh ma jiro Soomaaliga xirfadiisa ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade ka sarana de koodii wadanka jooga haysta inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada muctaraf maaha marka horeba adiga waxa lagu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiyo waxba kama jirayaan waa kii wadanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sita waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa ilaa injineerada oo dhan waxa laga yaabaa inay taxi drivers ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayay waa taxi driver waa bus driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid Soomaalida xagga joogta marka waa faqaro
طبقة وجوه سيسا بالشدة إلا نولين ما لهم بكيه أنت صور دبا وحا الراعدة قرن كهالكن كلا تجاه سومالي ده وقبيل كي يسقبس كي رير بالمارك كرادي وحين هوستي كوسيتان سوقد waxa laga yaabaa wax kasto isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la yiraahdo reer hebel uma maamulaya meesha ka baxaante reer hebel kala soo galay waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa haday dadka kale siraadaan warimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheega waa waxaan muuqanayn la arki maayo waxa isku haysta ilaa hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebel meesha haysta marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo dad idin yimaado isla dhexdhexaadi problema sheegtaan muuqan maayo waana isku dhagantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysato arkaa markaasuu yiraahdaa dhibiba waatan haddaad ka baxdo mala noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tagay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaqoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin dee waxa laga yaabaa inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positive-kiina sheeg muxuu yahay positive-ka halkaa ka jira kow waxoogaagaa darawalladu soo direen ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraayeen la siisiinayay uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guri aan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaantii iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay uun og yahay inay xaaraantii inay xalaal tahayna anigu aanan aada u hubin in badanoo ka mid xaraani xalaal waxay noqonayso aanan aada u hubin kaasi waa jira qadiyadda labaad baa jiro oo ah gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga bay muujisay xijaabka iyo marada weyn ay jiidayso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaane intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabanidii waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhi surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi masalada xijaabka bulshadii kale way ku dhiirigelisay marka waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cad oo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh يعني dadkii kale oo maradan weyn ku soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha Soomaaliyeed way faafiyeen waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo hadduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore oo dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaadiyeen oo quraanka yaqaaniin cunsurka kaliya ee Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajidna waa dhiseen oo wadannadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqolka baan iyo $100 iyo $1,000 bixiyay bulshada Soomaaliyeed daara badan oo masaajida inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii Turkida iyo Pakistan tu dhisay oo kale inay noqdaan masaajida waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno Soomaaliya 70aadkii halkay joogtay kontonada uun baa ku tukanaya war odaydan carruurtoodii meeday magaalada ku jiraan dadka tukanaya waa maxay waa kontonada iyo pensionista Soomaalidu masaajidda waa dhisaan midhadhka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay inay qalad tahay laakiin dadka kale ku ammaanaanna way sameeyeen
soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka Soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo Congress-ka Mareykan fadhiyo le Mareykanka xukumaya Soomaalidan maqal Soomaali qaxoontiyo shalay tayimi oo Ingiriiska u fadhiyo European Union-ka inaan Soomaaliyeed ba u fadhiya oo le baarlamaanka Yuruban u fadhiya Ingiriiska waa nin Ingiriis oo baarlamaanka Yurub u fadhiya nin Soomaaliyeed oo ordayo le baarlamaanka wadan Sweden ama kan baan ku jira ama inaan Soomaaliyeed oo le meeyarka magaalo Heblaayaan hay Mareykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyar ka yihiin habla Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed gabdhaha isaga badan oo golaha deegaanada ee magaalooyin ku jira ma garanayo waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin qofka de gaalada dhex cararay ee waxay walaaqayeen la walaaqay ilaa xadka uu soo gaadho laakiin waxa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yiraahdaan nimankan waa niman active ma nimankii shalay tayimi iyo Congress-ka fadhiistay ama shalay tayimi iyo European Union-ka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan soo duduub percentka inaga lumay iyo percentkaynu haynaa ee waxqabadka mid adduunyo mid aakhiraba isku daro kee badan أنا waxaan ku wadaa inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta waxa laga yaabaa inaad aragteen laba saddex qof oo Yurub inta ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yiraahdo hebel Sweden buu ka yimi hebel Ingiriis ku ka yimi hebel Ingiriis ka yimi they were 1001 kunkii qof baa qof haysaan ومين ودنا أنا نيجوجين كونكي قف بقف وحيستا مين نيجوجين كونكي قف بتبنا وحيستا جوجا ودنا ضتن سوالي يقول يدي جوجا سوالي يجوجا هدي له يقول ضد أنت وحيستين أنت وحيسن كونكي بوي كبدين قف يلا بيصدح يا أفر بوي كبدين لكن ضد كهالك جوجا مركز درجته مد باسبور مريك لي مال كان كمبني يركب فرطي أما مد السودان كي مال كان كبير يركب فرطي أما مد نرويج كي ورلا بيا فرتكم بان نرويج جوجا laba aragtana intii kala maada afartankii kale xagga ku maqantay koob iyo afartan kun baa la maqan iyo dheeraad xagga ku maqan yihiin yani waxa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin dadku markaa waxay ku eegaan hebel baa sabir mustaamil heblayo ka war waa 1 in 1000 kama badna adoo dad si cararto 1 in 1000 ka inaad noqonayso mise 999 ka inaad ku biirayso labada probability ka aad u badinayso waxaan leenahay Yurub sida dadku haystaan maaha faqra ka jira wax la'aan baa ka jirta dhib baa ka jirta guri burburay baa ka jira caruur aan gacan lagu hayn baa ka jirta midhadh ilaahay caruurta u hagaajiyay waa joogaan waxoogaa quraanka ilaahay qaar qaybsiiyay waa joogaan oo laga yaabo inay musaabaqaadka caalamiga ah maqashaan inay qaadeen maraykan kale wax laga yaabo musaabaqa lagu qabtay 18 qof baa jaayisa qaadanay 18 kuwa Soomaali bay ahaayeen laakiin de 18 markay jaayisad qaadatay 18 kunna jeelash iyo meel daran bay ka dhacday habsiyada iyo madhulaan la garanay marka waxa weeyaan waxoogaa dhankani waa jira mustaqbalku siduu u eg yahay mustaqbalku wallahu a'lam siduu imika yahay haduu ku socdo ma qurux badna دي وحلا بدلا قرن مايو لكن سيدو هدا يهي هدو أصي صعده يجو بحوث يسميان وحكوت الماميان قلدا قايلين السلا كالجر كايس بدلي وحبا يسبدلي وحيلين ما حبا اسمه بدلين وحين السوق يناون بيلين سدح جنريشن دن دتك كم من نقونيا كان يمي كوسير دالي ومن السوق ينابيلين saddex generation oo halkan ku dhashay bay leeyihiin generation ka saddexaad aan European bay leeyihiin ama Hamadoobaad ama cadaade laakiin thaqaafadii iyo afkii iyo culture-kii iyo wixii xagga kala yimi wulumaya Europe markaan tagaan ogaaday af Soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af Soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqad diin xambaarsan way dhasha maanta Europe joogtaa ee Soomaaliyeed intooda badan iyo Soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba ka garanayn
kaasuu gurigiisii u haystaa adiga hadduu kuu yimaado waa waageeni isma fahmaysaa intaa waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la la'yi waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada Soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay Soomaaliga xataa afafka kale waxa laga yaabaa inay fahmaan inaanay ku hadlin xataa afafka kale ku akhriya ama wax ku bartay inay fahmaan baa laga yaabaa inaanay ahayn maxay fluent speakers maaha sida awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya inanka Soomaaliyeed ee Norway ku koray ama Sweden ku koray ama Denmark ku koray ama Germany ku koray ama af Soomaali ma hayo hadduu af Soomaali waayo yuu diin ka baranaya baa idinka weydiinaya yuu diin baraya ma af Carab u bartaad u malaynaysaa yuu diinta ku baranayo si af Norwegia diini ugu qoranta maya xaguu markaa diin ka baranaya kaasi ku sii dhala muxuu barayaa kaasi waa laga yaabaa markuu gababo inuu yidhaahdo hooyadayo tugtukataan soo gaadhay laakiin ka yari ma soo gaadhin yani muslimiintii qabatay maalan waddankan la yidhaahdo Australia xagee ku dambeeyeen muslimiin badan Afghanistan la qaaday awr bay wadeen Ingiriisku taranada ma haysanin taranada markuu dhisanayay geelaasaa la watay geelan tirada badan la imika keynta lagu sii daayo Australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen waad arkay un qof family namekiisa saddexaad family namekiisa dambe uu magac muslim yahay laakiin isagoo aan muslim ahayn iyo wuxuu dhowtoona Soomaalidii South Africa la geeyay xagee ku dambeeyeen Soomaalidan Kenya meelaha waxa laga yaabaa inay ku sii dhawaayeen wali wadankii oo ay waladan East Africa inay wadanka si uun xidhiidh u lahaayeen Soomaalidii South Africa la geeyay 500 oo nin buu Ingiriisku geeyay waxba lagama hayo hal nin la sheegaa hal nin la sheegay wax noqdo markii dambe Soomaalida ku soo noqdo intii kale iyo waxay dhaleen toona meel ay ku dambeeyaan lama hayo su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga ee meesha tagay mustaqbalkoodu sidoo noqonaya de waa laba mid in laga xoog bato la milo oo dadku si cad uma odhanayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tagay laakiin wuu milmaya jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii diin yariyay ilan systemka waxbarasho uu galayo noloshu la kulmayo dadku la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo deynay sida u dhacdo iyo si kale mucjiso ayna u dhacdo taana rageedii lama haya wali ma aragde sida kale mucjisadii waa maxay weynanu jiilu saxaabo oo kala noqono dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushun min ad-du'aat inay yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadama bedelaya de hore way taariikhda uga dhacday wadad muslimiin hore u sameeyeen laakiin dadkani hami diineed ma sideen markay meesha tageen mise hunguridoon bay haayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin al-jund al-majhul lil-islam dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yaryar oo gaalada ahaan jiray waa soo islaameen laakiin inta inaga baxday inta islaamta ka badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada ka badan weli waxaad moodaa inuu badan yahay inta xaggooda u soo soconaysa muhaajiriintii hore muslimiinta ee wadanada tagay nawcun ma waa milmeen inkastoo aad hadda moodo fufkan dambe islaamiga inuu dib u soo yara gaadhay oo waxoogaa dadka hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn laakiin wadanada qaarkood waxaa tagay dad muslim oo aqoon-yahana مثلا maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha professorka ama waxa ka aqoon-yahan inay tageen halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska ummiyiin oo aan aqoon lahayn waa jira isbedel cusub oo dunida ka jira hadduu yahay isbedelka technology-ga ah oo xidhiidhkan technology-ga ee internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh waagii hore ma jirin ninka xagaa ka yimaada muslim marka buu soo raaci jiray 3 bilood buu jidka ku soo jiri jiray bil afraad uu wadanka soo gaari jiray hadiiba uu yimaado dii kalena
ma soo noqon jirin laakiin imika itisaalku waa badan yahay tv-yadan internationalki waa tiro badan yihiin afafka dunida lagaga hadlaya baahaya waa tiro badan yihiin waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan xidhiidhkan tirada badan le la samaynaya raad ma yeelan karaa oo mana dhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gadisnaanayaan waxyaabaha yaryara noocaasee jira ilaahay lagama qusto subxaanahu wa tacaala dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan waa la isleeyahay wax bedela laakiin ilaa hadda trendku xaggu u socdaa ilama qurux badna dadkiina dhulkan joogana ee muslimkaana kuma taliyeen inay xaggaa qabtaan waayo waad iswaayi meel aad ugu sarraysaad joogtaa iyo bulsho aad ugu hoosaysaa baad u tegi soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqiro ama lama maago miyay kaa caqli yar yihiin miyay kaa gedisan yihiin waa bulshadunbaa dhaqan ka dhigatay inay maagto soo maaha waxaad u tegay bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto idan mahma adigu aad inaad reer hebel isu haysato saan isu taagayso bulshada agteeda waxaad tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan xataa muslimka haddii la kaatarigareeyo dee muslimka madoowe muslimka carbeed wuu kasii dambeeyaa soo maha dee maqaayistooda markaan ku eegno marka adigu muslim baad tahay madow baad tahay qaxoontaad tahay faqiir baad tahay afartaas mid quraa lagugu nici karaa adigoo afartii baad kulansatay hadday jiraan wax mambuud ka ah yurub dhexdeeda waa 40 shay afartaba adigu waad kulansatay marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha hadda kama warramin nusuustii qur'aan iyo xadiid iyo ma bannaanta iyo ma bannaana toona idinka kama warramin baabkaasina waxaa laga yaabaa inay in badan culamada ka maqasheen taa kama warramin ee waxaan ka warramayaaba aragtidiinana xooladoonka iyo tacabirka waar waxoogaa baan soo xoogsanaya adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo inaanay ahayn beersantka wax helay markaa waa beersantka aadka u yar weliba beersantkaasina waxoogaa yara uu helu la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyey markuu hore uu halka imanayay wax may ahayn 30 kun 40 kun buu la ordayay markuu halkan yimi laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay laakiin xagga wax ku noqon mayso